halkani waa idaacadda habar dugaag oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha geesaha dhaadheer iyo kuwa suulasha qorofan leh kulanti wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan qodobada aan idinkugu hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah libaax oo ugu baaqay bisad iyo jiir inay ku soo laabtaan miiska wadahadallada midowga xasharaadka oo ku baaqay in gargaar naf iyo maal lala gaaro aboor kadib markii fatahaada la tageen dudumihii uu dhisay in ka badan 8 milyan oo digaag ayaa u dareeray goobaha codbixinta iyo muranka ka dhaxeeya musmaar iyo alwaax oo aad u sii xoogaystay balse marka hore warkii dunida iyo saaxiibkay lama arag mahadsanid lama maqal libaax ayaa ugu baaqay bisad iyo jiir inay ku soo laabtaan miiska wadahadallada kadib markii lagu guuldaraystay wadahadallo socday in ka badan 8 bilood libaax waxa uu yidhi dagaalka oo sii socda ayaa wuxuu keeni karaa burbur iyo barakac hor leh waxayna dharbaaxo weyn ku tahay dagaalkaas oo sii socda beesha habar dugaag annagu waxaan taageeraynaa buu yidhi wadahadallada ka bilaaban doono waddankaasi hanqaraara taas oo lagu doonayo dadaalkii ugu dambeeyey ee laysu hor fariisin lahaa bisad iyo jiir oo dagaalkoodu yahay mid aad faraha uga baxay toddobaadkii tegey ayaa dagaallo lagu hoobtay waxay dhex mareen bisad iyo jiir iyadoo la sheegayo goobihii laysku fara saaray inay la wareegeen bisad jiirka aalaaba wuxuu ku eedeeyaa libaaxa inuu garab siiyo bisad libaax ayaa soo jeediyey bishan dabayaaqadiisii in loo diro ciidamo nabad ilaalinna xuduudda bisad iyo jiir ciidamadaasina waxaa si toosa u taageeray maroodi shabeel haramcas guduudane weer oo ay ku tilmaameen inay tahay tillaabo horumar leh in ka badan 8 milyan oo digaag ayaa u dareeray goobaha codbixinta waana doorashooyinkii ugu horreeyey ee laga qabto digaagga dhexdiisa waryaheenna nooga soo warramaya magaalada caasimadda oo ee raangu ayaa sheegaya inay digaaggu aad iyo aad diyaar ugu yihiin inay codkooda dhiibtaan hase ahaatee warar hoose ayaa la sheegayaa inay dhici karto in lagu shubto ra'iisul wasaaraha dhurwaaga ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado hadalka ka soo yeeray libaax ee tilmaamaya inuusan dhurwaag ka mid noqon karin xubin ka tirsan golaha ammaanka ee xawayaanka dhurwaagu waxa uu yidhi xubin noqoshada golaha ammaanka ee xawayaanka waa mid u taalla dhurwaa ee ma ahan mid libaax hor taalla waana loo baahan yahay hadalka ka soo yeeray libaax inuu raaligelin ka bixiyo wariyaha iyaga nooga soo warramaya koonfur galbeed ee dhurwaa ayaa sheegaya in calaaqaadka libaax iyo dhurwaa baryahan dambe ay aad u sii xumaanayeen halkaad warkaasi kala socda cabdilaahi aadan qardajeex oo ka mida dhegaystayaasha VOWda oo wada ka ah mid ka mida baabuurta xamuulka qaada iskaga goosha gobolada dalkan Mareykanka ayaa jeclaystay inuu inala wadaago qiso la yaab leh oo qabsatay isagoo ku guda jira safar uu kaga yimi gobolka Tennessee kuna socday gobolka Ohio cabdilaahi mar kaliya ayuu ku war helay gabadh gaadhigiisa ku dhex jirta oo dul taagan isagoo xilligaasi highwayga xawaare sare ku socda bal sheekadaasi oo uu nooga dhacay aniga iyo maxamuud ibraahim cali wuxuu ku bilaabay waxaa dhacday walaal meel waxaan soo galay track stop ah oo shidaalka laga qaato shidaalkii baan qaatay gudahan galay kafee baan rabay inaan soo qaato marka gaarigayga gaari u eg baa isu ag istaagay oo baabuurtan waaweyn ee xamuulka marka way isu eg yihiin gaariga iyo gaarigu way isu eg yihiin waa isku kambani awal waa loo garaysan jiray arbaabada laakiin maalinka ilaahay amarkii waan ilaaway gudahan galay gaariga kale marka ninka wata xaaskiisii uu maalinkaas soo kaxeeyey just waa reer dhan oo guuraya waa macnaha ha dee baalku sariir dambena waa leeyahay waa iska guri caadi ah moogta waa gar fridgekii iyo microwavekii cuntada lagu kululeynayana waa ku yaalaan waa gar marka qoyskaasi shaqana waa ku jireen waana safar caadi ahna waa isaga jireen haye marka waxaa dhacday ninkii iyo naagtii wixiiba gudahay galeen iyagoo laftirkooda waxbay soo qabsanayeen anna gudahan galay gabadhii uu odaygu qabay baa noogu soo horbaxday macnaha dhinacii baabuurta soo aaday gaarigaygii bay gashay marka oo waxay mooday keedii waxba may eegin dhinacyada waxba may eegine sariirtay tagtay sariirtaadii seexatay oo gaarigii ku saaray gaarigii bay soo gashay horey sariirtiisa ka tuurtay horey sariirta tagtay marka baabuurkuna wuxuu leeyahay bahalo u dhaxeeya darawalka iyo sariirta oo daah camal oo u dhaxeeya sariirta iyo steerinkii xaggii gaariga laga wadeeyey waa taha anigu gaarigaygaan soo galay dhinacna ma eegine furahan ku rogay dee waddadaan qabsaday waa gartay iyaduna waxay mooday odaygeedii inuu gaariga soo galay mayba sii welwelinba waa gartay dee taraaglayaashu waa taqaanaaye teleefon baan iska galay moogta taraagyadu waa isku soo xirxiraan oo khad lagu sheekaystaa jira waa gartay groupkii baan iska wacay oo meeshii baan galay oo sheekaan iska qabsaday moogta
haye waxaan maqlay cod ah baby what kind of language you talking about today oo gadaal baa ka maqashay xaggii sariirta waxaa isiri waniho ma maskaxdaada ma waxaa maqashay ha de gaariga cidna kuma ogeyn maogta ani keligay baa wada waa tahay markaasan baaba lagu yidhuun waa maxay luqada what kind of language you talking about today gaariguna de waa guux badan yahay qof teleefonna ku jira xaggana cod baan ka maqlay markaan wax yar socday oo sheekadii aan sii waday anigu groupkaygii baan maba ku mashquulinba wixii waxaa isiri waa adiga niyo niyadaada waaya isiri islaantii oo dee sida dadkan u labisane bahalo yaryar halkaa maaragtay ku wadato oo iyo bahal yar oo gaaban wadata ha waa markaa gabadha waa gabadh caddaana ha waa gabadh caddaana adigu ilaa da-da sodomeeye meelahaas ah waa tahay waxay soo istaagtay halkan hore ee anigu gaariga aan ka wadayey sariirtii bay kasoo kacday daahina way iska soo furtay ha waa tahay gaarigiina waa socdaa highwaygu saaran yahay isla markii way ogaatay iyadu inay khaldan tahay haya gaarigii bay eegtay oo sijaayadii aan ku tukanayay iyo wixii gaarigii inuu ahayn way aragtay markaa iyadu way isgaratay markaa waa tahay mar alla markay aniga ila hadashay baan yaabay oo naxo fijacay haddaanan naxdin u dhiman maalinkaa nasiib baa wallaahi marka xagga dambuun baad eegtay waxaad aragtay qofku dul taagan hal marun baan saa u eegaya islaanti madhaadeer oo dee si u qaawano si fiican u haye anigu dee maba soo qaadan ba waxaana bini aadam ah waxaa isiri jim baa saqafka kore gaariga kasoo galay ma aqaan jim baa soo galaa isiri gaariga haye marka gaarigu aad buu u socday dabcan bismillaahi araxmaani iraxiim hadduusan gaarigu ila dhicinba nasiib baan lahaa haye naxdin leh markaasaan wadadii baan ka baxay shoulderkaan istaagay waxaa shoulderka la yidhaahdaa halkan highwayga qarkiisa ahe markay wax kaa xumaadaan la istaago waa garta marka bareegii ma hal maraa wada qabatay macnaha jawaabtaasay ahayd halaaj iyo geerkii oon foollo ka dhigay wixiiba waa isku daray waa tahay wada hal mar gaarigii taayaradii qiiq baa ka kacay qiiq bareegyada iisoo uray haya haye still ma believe garaysni waxaan inuu insi yahay taagosaa waa iga soo dababoodayadu waxay rabtaa inay dhahdo qalad baa dhacay raalli ahoobo come down please come down taasi ku haysaa haye dheg uma dhigine waa ka cararay haye ma cuudubilaysatay intaa cararaysay dee acuudubileysi ayad kursi yaasiinka waxaan isku darinba male inta qur-aanka ka taqaaniba waad iska dhamaysay alla inta aqaani waan akrinayaysaa anoo wax akrinaya dhinaca ka hordaya wixii anigoo dhan ba dhiis baan noqon haye darkiibaaba igu qoyeyba haye alla rafaad weyna markaanu iscayrsanayno ku dhawaad 10 daqiiqo ha waan istaagay naagtii waxaa yidhi horta haytaaban halkaa istaag marka way ii sheegtay waxay tiri qalad baa dhacay gaarigaygii baan mooday naa khaladkaaga mooye waxaan ku yidhi naftayda horta riski baad gelisay haye waa dhiman gaara dhahda maanta waa cagacadda masaakiinta iyadaaba markii dambe u nax meeshii baad dib ugu soo noqoteen makaa kaa soo raacday meeshii baan dib ugu soceliyey ha haye saa ninkii baaba daalac u qabsaday naagtii oo anna i qabsaday oo buuq dhaliyay isna waaba hinaasayba uuba hinaasay oo wuxuu leeyahay naagtan adaaba kaxaystayba war waxaan ku yidhi wax ma kuu sheegaa haddadaa inaan booliis waco iyo inaa iga tagtaan oo naagtaada iga kaxaysato wax ka dhexeeya male maxaa dhacay oo booliis wacaysaay oo naagtaydii baabad kaxaysatay see booliis wacda adaaba iga khaldane ani gaarigaa la gidoomi gaaray naftaydiina maanta halisay gashay haye inaan sharciga ku kala baxno iyo inaad tagtaan oo naagtaada kaxaysato wax ka dhexeeya male naagtii baa la wareystayoo mar alla markaan sheekada uga sheekeyaa la kala daatay haye waaba wax qoslamo iyo wax kalaa la waay haye dadkani maxa inta badan xadgudubka ma jeclo oo khaladka ma jeclo oo ninkii waa i raaligeliyey